No one knows the secret. haddii aad doonaysid qofkii aad kala tagteen misan jacaylkaagii hore inuu ku xiiso oo uu ku soo codsado sirkan isticmaaliyo soo jeedintii aabaha jacaylka iyo arrimaha xiriirka ee Mansiif Jecelow kagana bogo videogani fadlan haddii aad goobtani ku cusub tahay subscribe dheh si aad ula socotid video walba oo aan soo bandhigi doono haddii aad rabtid jacaylkaagii hore oo aad kala tagteen inaad isku soo laabataan waxa muhiim ah inuu marka hore qofkaasi uu ku soo xiiso kuma qancin kartid qowl inkastoo ay wajirin codsi misan baryotam sabab u noqon karo qofkii hore oo aad kala tagteen inuu ku xiiso waxaa lagaga baahan yahaa in aad yeelatid soo jiidasho dabiici ah horta qofka maxaad u kala tagteen jawaabta ayaa ah jacaylkaagii hore sababtaad u kala tagteen waxa weeye soo jiidashada aad lahayd ayuu ka waayay ee sidee dib ugu soo dhisi kartaa soo jiidashadaada waxaad samaysaa si jacaylkaagii hore uu kugu soo xiiso haddii qofka uu si xad dhaaf ah kugu xiiso waxa uu jeclaanayaa inuu dib ku helo si uu xiisadahaasi kaga bogsado balse sidee qofkaasi uu kugu xiisi karaa habka u hore oo aad samayn kartid si uu jacaylkii aad kala tagteen kugu xiiso ayaa ah in aad si degdeg ah oo lama filaan ah inaad maciishadiisa gebi ahaanteedba kaga baxdid waxaa laga doonayaa in aad qofka afaarihiisa dhammaan iska dhaaftid ka bixida maciishadiisa sida lama filaanka ah oo aad oga baxday ayaa waxa ay sabab u noqonaysaa in uu si dhab ah kugu xiiso qofkaasi waayo wuxuu weynayaa kalgacaylkii iyo maciishadii macaaneed oo uu ku sugnaa ka hor intii ina kala tegin habkani oo aad kaga baxaysid maciishadiisa ayaa zaa'id loo adeegsadaa oo waxay tahay hab caan ah waxaana loo yaqaanaa gooso istaraatijigani waxayna ku salaysan tahay qofka oo aad iska dhagatirtid ku dhowaad 30 maalmood kadib markaa saa u kala tagtaan tani waxa ay sababaysaa qofka inuu ku xiiso sayniska ayaa lafdhabar u ah qodobkaasi waxaana uu cadeeyay jacaylkaagii hore inuu 3 usbuuc gudahooda kugu xiisaya istaraatijigani haddii aad adeegsatid oo aad isticmaashid sababta kale ee istaraatijigani uu u shaqaynayo ayaa ah wuxuu fursad u siinayaa qofka inuu iska masaxo xumaanta uu ka arkayay oo u iloobo sababaha xiriirkiina burburiyay runtii qofka dareen cusub ayuu ku qaadayaa haddaba habab kale ayaa jiraan balse haddii aad talooyinkan raacdid wuu ku soo xiisayaa oo ka codsanayaa inaad dib iskugu soo laabataan fadlan subscribe iga dhis share ku qabo like la fuul haddii aad su'aal qabtidna hala baqin ee comment ahaan u soo qor miseen emailkayga ku soo dir mahadsanid